waxaan samaynayaa bil hadalka markii uu bilaabayay dhalinyaro group ah oo gabdhihii weelda isku jirto oo raba inay wax akhriyaan hadda gabdhuhu ku dambeeyay noo soo baxay gabadhii Firdawso soo waxaysay waxaan rabnay dhalinyaro maaragtay inay akhriyaan oo 5 iyo 5 buugana run haddii la sheego waxaan rabnaa annaga oo jaamaca inaan ka gadano gabadha sababta ay tahay xoogaa dadka haddaanan buugti ka gadanin weligood wax ma qori karaan dhowr boqol oo kun ah bay qofka ku bixiyay soo waxaan rabnaa haddii ilaahay kaa Firdawso kale nacam buuga inaan soo gadano aawad akhrisaan oo reading club oo kale nacam group akhrin marka macalinku sidoo haddaad fahamtay uu u sheegay wuxuu yidhi ardayda waxaan baraynaa from scratch sida wax loo qoro soo option u soo diyaargarow kalaaskaas waa maaha wax maalin isku bari karo waa wuxuu wiilkiisa bilo inay socdaan loo baahan yahay marka taa waa arrintaas u dambeysay oo ah haddaad inaa wax qorro macalinkaa kaaga bilaabaya maaragtay meesha ugu maaragtay hooseysa oo number 1 ah korna kuu soo wadaya markaas wuxuu ku barayaa horta marka intaada wax akhrin wax qorin horta aad wax akhriso akhriskaasaa lagu dhiirigelinayaa waxaad akhrisaa lagu dabagelayaa wuu barayaa akhriskii waa waxayna haddana wuxuu ku barayaa sidaa u qori lahayd marka taa macalinka wuu sheegay soo waxaan diidayaa inuu maadaama dad badan su-aal rabaan inay weydiiyaan inaan taa lagu seexin sababta tahay axadda ayaa diyaar labada shaqo wuxuu qofku qori lahaa asagaa laga rabaa hadduu naftiisa wax ka qori lahaa hadduu deegaanka u joogo wax ka qori lahaa hadduu warbixin kale u ogyahay wax ka qori lahaa mawduucuu qori lahaa asagaa la imaanaya laakiin annagu waxaan baraynaa habku wuxuu qori lahaa shuruucda qoraalka soomaaliga xarfiyahee la waaweyniyaa kuwee la labalaabaa halkaad goormee la geliyaa joogsi goormee la isticmaalaa calaamad su-aalka goormee la isticmaalaa calaamad su-aal hadduu xarabka ka dambeeya see noqon karaa waxyaabaha noocaas shuruucda qoraalka wey laakiin warbixintii iyo qofku wuxuu qoran lahaa asaga laakiin taasna tala bixin ma ka siinay qofka waxaa tala laga siinayaa qaabku wuxuu qori lahaa warbixin idan wuxuu leeyahay waxaan hayaa sheeko anay ugu saabsan marka sheekadii oo maskaxdiisa ku baahsan tahay suu u ururin lahaa ma yaqaan marka shuruucda qoraalka keliya ma ahee waxaan kaloo ugu dareynaa suu sheekada uu u qori lahaa meeshu ka bilaabi lahaa sheekada dulucdeeda si geyn lahaa si u soo gebagabeyn lahaa marka taasna waa say Firdawso sheegtay yihiin taladiina taas waxaan u maleynayaa inaan ka jawaabnay midda labaad oo ah gurubyadan qabta bulfeerada Muqdisho ka dhacay Kismaayo ka dhacay Jubiro ka dhacay Hargeysa ka dhacay isleeyihiin musuqmaasuqooyin isma laha wixii duwan Hargeysa ka bilowday bulfeerka 2008 sanadkii tobnaad bay hadda qabteen dad gaar ah qabta iyo waxaas la hoos tagaan oo caawiya Muqdisho ku xigtay iyaguna waa group kale gaar ah Garowana waa group gaar ah marka way isxasuumaan iyaga laftigooda marmarka qaarkood oo qolo xag ka qaybgashay qolo kale way timaadaa laakiin qabanqaabada qolo walba gaarkeeda way dawladuhuna shaqo kuma laha qolo caawinaad ka heshay way jirtaa oo hadda saan sheegay hadda Puntland oo kale qolada qabanaysay Scanson baa la dhahaa waxay ka heshay caawinaad dawladda Puntland marka waxaan horta jaamaca ka mashquulay inta ka mashquul wax badan baa iga qeybin kasta oo la kala sameeyay aad baan u mahadcelinayaa Maxamed oo raba aad uga soconay markii maartay tagay markii boqorka galbeed maartay aad ugu mahadcelinayaa sidoo kale madrasada waa u mahadcelinayaa xarunta shaqeeyo waxaan sidoo kale rabaa inaan mahadceliyo dhalinyarada ugu horreeya أو جاء مثلي يعني وماشى معناه وجمثلي وحي حي جروبيو بدنا يسوي مدة بدنا بيسوي مد أفكار باليسوكين دي قالوا بعقبتها يستكهل يسي حال كان لذات كصومالي ورم وياله والله هذا البرنامج هذا والتنشيق الدولة هي كتير دولة هي لقب وحكوسة قانونية نسبة جدية حال كذا دلك سويها سألان أنا قاعد بوق بسوّده بوق مركز سوّده عن دابعه نيرو مكسب بندقية نيرو مركز بندقية وهم باهنا هاي ضد بدن وبقولارين يمادان حبلة فريتان كا بقولارين كقفنا إنجتام أو ويران
wixii aan ku daabacay uu jabsanay qofka ma dhiirigelinaya laakiin haddii aan wixii aan daabacay ama kuwa aan soo wada aan ogahay inay suuqna helayaan boos badan baa wuxuu u bannaan yahay marka dadka kaloo soo socda dhiirigelin buu marka halkaas inagoo dhan bay noolayaan markaasna wuu fadhiisanayaa mar haddii la sheego soomaalideena isma helino dadkii oo waxaa arkaysaa wada yimid oo sidii u yimid inay sheeko dhegaysanayaan laakiin waxaa la rabay inay qofkana ku caawiyaan ay kunkaa shilin bixiyaan oo buug ka gataan ayna dhegaystaan ma aragtay muhiimadda laga hadlayo akhriska iyo qoraalka iyo baalkaas marka runtii waxa waaye hadda meel baynu yara gaaray dadku meel hadda hataa waxaan haysanaa markii dadku ay bandhigayaan ay yimaadaan la dhahaan hebelow aw jaamaco noo bandhiga buug waa qoraan maxamed nuushire qoraan maxamed nuushire maanta xarunta dhaqanka iyo cilmibaarista oo jaamac waxaa ka qabsoomay kulan ay isugu yimaadaan dhalinyaro badan mana sheegi kartaa muhiimadda uu lahaa kulankaas ku qabsoomay xarunta oo jaamac Cumar Ciise ee xaafadiisa iyo magaalada Nairobi muhiimad uu lahaa waxay ahayd kala warqaadasho waayahan waxaa iska jira waddanka doorasho iyo howlahaas aan ugu jiray marka xarunta xogaa way xirneed oo hakad baa jiray oo shaqadii ku yimid xarunta haysay marka in la kala warqaato muhiimadda koowaad bay ahayd oo la saarto midda labaadna kulanka muhiimadiisa ugu weyn waxay ahayd maanta aniga oo ah qoraan maxamed nuushire oo ka soo qayb galay bandhigii buugta ee Garowe sanadka saddexaad lagu qabtay bishii hadda la soo dhaafay ayaan uga warbixinayay dadka xarunta ku xiran sida uu buugeedka iyo waxyaabihii laga faa'iiday marka muhiimadda kulanku taas ayay ahayd ku kala warqaadanaynay dadkuna ay jeclaayeen inay wax ka ogaadaan bandhigga buugta ee Garowe ka dhacay marka inaan warbixin ka siiyo ayaa muhiimadda kulanku ahaa in dib loo maaragtay waraysto أنت قرأ محمد نور سؤال شكرا بينك ودي واحد هاي واحد ama maxaad higsanaysaan waqtiga dhow ama wax ka higsanayna wax badan baan higsanaynaa xarunta jaamac hadaan nahay waxa inagu soo fool leh oo barnaamijka ugu weyn oo hadda aynu soo hayo uu yahay toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo ah barnaamij sanadle ah oo sanad saddexaad la qaban doono bisha Oktoobar ee soo socota haddii Ilaahay naftu inoo deysto barnaamijkaasi markaa diyaargarowgiisii baa lagu jiraa seminaaradii ka horreeyey qaar dhalinyarada loo qabanayay ay ku baranayeen sida wax loo sawiro shaxanka midka dumarka ay ku baranayaan farsamada gacanta barnaamijyo noocaas oo ka horeeya toddobaadka dhaqanka Soomaalida ayaa jira looguna gogol xaarayo toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo Oktoobar qabsoomi doona waxaa kaloo jira barnaamijyo yaryar oo iyagana xarunta si joogta uga soconaya oo iyadu ku xirneen sanad ama bil gaar ah ku xirneen oo ah akhrinta in wax la akhriyo in wax la qoro cilmi baarista barnaamijyo badan oo noocaas ayaa jira oo sanadkiiba aan doonayno maaragtay sanad ka dambeeya inuu horkac iyo uu sii yeesho marka wax badan baan aaminaynaa Ilaahay noo sahlo waxaan ugu weyn hadda toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo nagu soo foolay bisha Oktoobar barnaamijyadaas kale oo kuwa aan sheegay oo xirfadda qoraalka dhalinyarada lagu barayo oo toddobaadkan dhaqanka ay jiraan barnaamij noocaas oo badan ayaa jiri doona adeegyada muasasada Qoraan Maxamedow waxa magaalada Nairobi hadda aan ku sugnahay waxa ku yaala library aad u fara badan marka librarian ama maktabada wax laga akhristo ee xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista oo Jaamac Cumar Ciise maxay ugu duwan tahay kuwaas waxay ugu duwan tahay horta meeshan waxay ka kooban tahay waxa ku taala maktabad lagu akhristo buug baa taala marka qofka doonaya inuu akhristo wuxuu heli karaa jawi ku akhristo buugti haddii uu computer haysto oo laptopki soo qaadanayo khadkii baa yaala waxaan u fududeynaa inay buugta ku qaataan si muxuu ahaa lacag la'aan buugta kama gadno qofka buuggii uu rabo wuu qaadanayaa waqti baa la siinaya wuu soo akhrisanaya wuu soo celinayaa wixii buuga meesha yaala marka qofku wuxuu u leeyahay fursad uu ku akhrisan karo cid ay ka xiran tahay male buugaagta yaala noocyada Soomaaliga Carabiga Ingiriiska Sawaaxiliga intaba way taalaa marka qofkii raba inuu akhristo wuu imaan karaa qaarkood waa la siin karaa buugta laakiin wuu soo celinaya buugta xaruntaas kale qof ma laha marka
fursadahaas oo dhan ayaan u saamaxnaa ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku nool xaafadda Islii. magacayga waxaa la yidhahdaa Raxmaan. raxa maanta barnaamijka meeshaan ka socday maxaad ka fahantay walaa aad u mahadsan tahay barnaamijka maanta waxaan ka fahmay horta marka waxaan la hadlay Maxamed Nuur oo maxaa la jiray qoraa Soomaaliyeed oo aan akhriyay buugaagtiisa qaar ka mid ah oo ka imaado oo Soomaaliya dadka Soomaaliya Maxamed ka qayb galay qoraaya book fair badan oo Soomaaliya ka dhacay maanta waxay warbixin naga siinayay Puntland oo ku tagay safar ku aaday iyo waxyaalaha ku socotay iyo sida dadka ay meesha ka ahaayeen dhalinyarada nooga warbixinay laga sheekeeyay waxyaalaha fiicnaa oo xaqooda sida qorayaasha fara badan ee dalkeena ku nool ay wax qoraan laga sheekeynayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee jooga Puntland gudihiisa magaalada Garowe jooga iyo gaar ahaan Soomaaliya ku wada imaaday oo isugu imaaday magaalada Garowe oo waxyaalaha wanaagsan u qabanaya bulshada ayuu ugu wareemay waxyaalo badan ayaan ka fahmay aad iyo mahadsantahay markii ugu horeysay imaataa xarunta dhaqanka maya ani xarunta dhaqanka waan ka tirsanahay ilaa maalintii la aasaasay ilaa maanta aad iyo mahadsantahay Raxmaan ما شاء الله aad baa u mahadsantahay Hotman iyo teamkada waa ku dhawahay aad baa mastawa Axmed talent loo yaqaan Axmed oo maanta kulankii ka dhacay halkan sidee baad u aragtay maxaa ka faa'iiday ما شاء الله horta kulanku dabcan maanta ka dhacay Islii xaafadda tirsan magaalada Nairobi gaar ahaan degmada Guji aad baan u mahadcelinayaa asxaabta soo abaabushay oo ugu horeeya Maxamed waraaqeena weyn ee Maxamed oo dabcan asagoo hadda book fair ka Garowe ka yimid Soomaaliya sidoo kale waxaan mahadcelinayaa xarunta Awjaamac oo xisee dhaqanka iyo qoraalka markaan Awjaamac ka hadlaynana run ahaantii waa inaan aad u fahanno Awjaamac waa xarunta ugu weyn wax akhriska iyo dhaqanka ee ka jirta dalka Kenya ee Soomaaliya ay leedahay intaan garanayo waa xarunta dhiirigelisa hadday noqoto dhalinyaradu inay wax qoraan hadday noqoto dhalinyaradu inay dhaqankooda ku dhiiradaan hadday noqoto in Soomaalinimada iyo qiyamka Soomaalida dib loo soo celiyo waxaan isleeyahay waa rakanooni dadaalka ay wadaan waan ugu mahadcelinayaa Axmed talent aad iyo mahadsantahay markii ugu horeysay imaataa oo jaamac mas'uud ku xirantahay markii soo imaataa Awjaamac waxaan ku xiranahay ugu yaraan 3 sano gudahood aan leeyahay meelo badan stage badan bay soo mareen dadaal badan bay soo bixiyeen maanta meel fiican bay marayaan Soomaalidana aad bay ugu riyaaqday aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay dadaalkiina halka ka wada maanta haday noqoto maalmo kale oo ka soo qaybgeli doono insha Allah ka faa'iideysan doono horena waa laga faa'iideystay wax akhriskayga iyo qoraalkayga iyo haday noqoto dhaqanka soo kaabeen aad bay soo kaabeen aad u weyn waa ugu hayay aad iyo mahadsantahay talent ma sha Allah